wax xiriira ma leedahay najmuudin waqtigan adigoo ah muuse toorey kugu boobsiinaa iidi ku dhashay qubays la'aan noolow amaba caday la'aan noolow keebaa ka maarantaa lacagta what you talking about lacagta marka xag fi sibu nimanka wax uga qaldan yihiin ma nimankiiba xagga inta kale nimankii badanka way koosteen ma tahay tiktoker hela tiktok gifts ama youtuber lacag ku hela Bible ma kugu adkaatay inaad lacagta Bible u bedesho mobile moneyada bariga Afrika haddaba xalku waa mid aad u fudud tanana waxay ku sahlaysaa inaad Bible si toos ah ugu bedesho mobile money ilbiriqsiyo gudahood waxaana lacagtaada ku heli kartaa Premier Wallet, EVC Plus, M-Pesa, e-Dahab, MTN iyo Airtel haddaba macaamiil marnabaha ka welwelin sarifka Bible kala soo deg hadda taran app Apple Store ama Play Store salaamullaahi calaykum soomaali weyn meel walbo dunida aa ka joogtaan soo dhawaada halkani waa Soy Film Studio Channel anigan waa maskiinkii xasooyaha waxa idiin wadaa lajimada kaliya oo ma aqaanee kulligiin aa wada jeceshiin ma arkin qof boqoradan walaashay ah horta najmuuduna markii barnaamijka imaado ma arkin qof aanan dheheen hala soo celiyo najmuuduna mar kale isqabanay muddo dheer kadib sida lagu keenay xaalkeed ilaahay waa ogyahay laakiin ani waa keenay faadeen ugu dambeyn ilaahay waa fududay najmu soo dhaw waa dhawaa saaxiib faraxsanahay inaan mar kale isugu soo laabano haye sharaf ay tahay si xun igmaada keenine waa la helaani rafaada lagu keenay faataalibada idin jaakiray guys qofta marka la keenay waxa la najmu wala soo soo najmooy dadkii aa ku rabo war waa lagu tabay aa lagu keenay am faatay beentis waa yaa la aaminin aniga waxa kaliya jeclaa waxay tahay inaan idila sheekaysto sida caadiga ah aye najmu podcast-iga caaw wuxuu isugu jiri doonaa qaybo kala duwan waxaan ku ogaanaynaa wax badan waxyaabaha aad danaysid wax badan waxaan ogaanaynaa dabeecado kuu gaara wax badan waxaan rabnaa inaad nala wadaagto siro kuu gaara marka caawo horta podcastigan wuxuu noqon doonaa sida aan ugu talagalnay mid dadka aad u xiiso geliyo oo noqon doonaa insha Allah su'aalo waxaa jira marka uu dadka qaar ee daneynayaan in lagu weydiiyo oo markaan dadka qiimeeyay commentiga fiiriyay ay rabeen in lagu weydiiyo marka waxay dhinaca xasanow waxa uu agtaa najmo markaa sheekaysanaysiin podcast-sida hore inaa wax badan aadan qodqodin marka waxay dhaheen waxaas noo soo weydiiyey wax badanaa marka ayaga hadalkooda ka soo qaatay wixii isku soo aadiyey sax waa qeybaha hore su'aalo normal iska ka weydiin doonaa caawo oo su'aasheen ugu horeysa ay tahay najmo qofka markuu social media horta ku bilaabo muddo uu ku jiro oo muuqaal sameeyo noqdo ama uu ka hadla baraha bulshada muuqaal waxaa jiro muuqaaladiisa ugu saameyn badanaa jiro like oo uusan iloobeynin oo ah muuqaalkii ugu horeeyay qofkani ka saacida inay dadku bartaan adi ahaan muuqaalkii kugu horeeyay oo dad badan ay kugu barteen ku ah asleeda horta si fiican uma kala xasuusto laakiin waxaan xasuustaa inaan jilaa ahaa oo markii ugu horeysay oo bulshada wax u soo bandhigaya ama la baranay inaa ahaa qof filim sameeyo ama riwaayad sameeyo taasaan garan karaa laakiin dadka iyo qaarba meel ba iga soo gaareen qaar baa muuqaalo yar goos oo iska fanifan igu bartay qaar baa riwaayada igu bartay okay najmu aalada internetka waqtiga nolosha wuxuu ka yahay 70% ilaa 80 aan dhigi karnaa isticmaalka zaid loo isticmaalaa adi ahaan ma ugu daran tahay dadka waxa ku jirta qofku markuu mar uu famous yahay ama uu influencer yahay badanaa waxaan dhigi karnaa noloshiisa wuxuu ku qaataa internetka isticmaalkiisa ama inuu wax soo dhigo ama inuu wax ka daawado ama inuu wax ka dhex diyaariyo wax ka kororsado marka adu ahaan see u kala maareysaa inaad aaladan internetka isticmaasho iyo noloshaada gaarka waa wax fudud laakiin dhalinyarada hadda dambe oo baan ku arkay waliba ayagoo iska hayacda ah aniga sida caadiga noloshayda caadiga ahna waji gooniya iyo dabeecad gooniya ku noolaha sabaan media markaa joogana siyaabo kala ku noolaha si kala u dhaqmaa sabaan wax dan ah ama wax faa'iido ah oo kugu jiri kara ma lahan in lagu wada barto horta adiga sabaan waa inaad leedahay sir waa inaad leedahay qaab hadda ani familygayga media lagama yaqaan ama ninka aan shukaansado media lagama yaqaan lagamana baran karo صح waa noloshayda gaarka ah laakiin aniga buuqayga iyo
labiskayga iyo muusigayga iyo dhuqdhuqdaydaas waa la yaqaanaa. Waxaana jira dadka si ay ii aaminsan yihiin hadaa kusii darsado ee su-aasha kamid ahayn midda ah najmo waa isla weyntaa way cute badan tahay. taas jawaabka ma haya laakiin waxaan jeclahay aniga qof kasta siduu ii aaminsan yahay inuu ii ahaado iga aaminsanaado. aniga inaa iga maqan tahay inaa ii joogtid maxaa ag faa'iidaya isleeda waxba haduusan qofku wax muhiim ku ahayn sideedaba inaa anigu wax helo iyo inaa wax waayo caadiba ii tahay. والله عادي بقيت نورمال وكسو جود بي انا wax isku dhajiyo waa weynaaday ali yani wax walba normal bay yihiin cid iga tagta cid ila joogta caadi marka waxaan jeclahay qofka hadba siduu ii arko inaana ka bedelin oo ii ahaado sidaas uu iga aaminsanaado. okay najmuudun muxuu kula naqin karaa adi ahaan maxay waxa ugu badan oo qalad ahaan dadka ay ka aamineen ugu badan isleedahay qaladkaasi dadku umadu ka aamineen sidaadaba oo qalad midii hadda ogta adina qalad tahay ka aamineen midii hadda ahayd waa kibir badan tahay najma way aan noo inkirtaa bal iska soo jaraay isma naqaan ani adiya hay sida ii dhig ka dhaamar. okay najma saaxib maxaa umada ka qarsan oo aad jeclaan lahayd adigu inay ka ogaadaan ya ila dadka laba isugu diro هذا اسمه درع الله ما حد اسمه بلمية هاي إن عن ضدك واحد كده يعني ميديا كجرا موه waxaa laga yaabaa laba qof ama laba gabdhood inay xiliyadaas istagaalayaan hoosaan ka wacaa hiblaayo waa wacaa day miidiyahan anaga barnaamijyo kale ugu jirnaa inaan daawanaan leeya maalin kasta idinka iga soo horbaxayay xagee joogtaan cid arkaysa ma lehe soo gala guriga anaa idii qabanaya cidna idin kala qaban mayso waa kaa kala baxa hadhowna aamusa tartiibtiina jikaha la iska dhigo okay najmo dhalinyara u badan waxay daawanaya waxaa moodaa marmarka qaar inay ku fakaraanba podcast najmo xaaladeeda wax ma iska bedelo wax ka ogaada wax xiriira ma leedahay najmo dun waqtigan aniga haddaan ku dhaho maya ama haa horta waxaa igu arkaysaa albaabka markaan ka baxo haddaan maya ku dhaha inaa haa iga heli doonto haddaan haa ku dhahayna banaanka markaan u baxaba inay maya tahay marka malihi xiriir hadda laakiin saacad kadib inaa yeeshaa macquula I'm Najma guys wax walba iga filo qoftan ma sha Allah ilaahay dhaaf waaway maxnadeeday wadataa cidna gooni isugu xira aniga anaa nool sidaada anaa la ii baahan yahay way aan qof ugu xisaabtamin karaaba isleedahay adiga cidna noloshayda muhiim gaar ah uma aha aniga waa kaasa saas waa okay najma su'aalahan waa arrimo shaqay ku seen doonaan waa arkeena sidee noqdaan najmuudun maadaama adiga hadda xataa dad jecleen ama daneyneynin inaad caanimadaada lacag ka samayso laakiin marka qaar fursado wadada kula soo raadsanayo guriga ku imaan maadaama aad tahay qof saameyn okay najmo sidee adiga baraha bulshada lacag uga samaysaa caanimadaada sidee lacag uga samaysaa kama sameeyaba ya kama sameeyo sidaada okay an media waxaan soo galay inaan isku maaweeliyo markii hore aan ka soo bilaabay inkastoo aanan caanimo dooran aniga fiirso hadda ka hor noo sheegtay aniga caanimo ma dooran haddii dib maanta la ii celin lahaana ayadaa kow ka ahaan lahayd waxaan soo sixi lahaa kama shaqeeyo ani shaqooyin kale baa ku jiraa ciddii ka warhaysa iyo intii kaleba oo aan ku noolaa laakiin dadka media lacagta ka sameeya ma ihi markaan youtube-ka joogay xataa ma kalahayn hadda oo xaaladda ay xumaato dadkii annagana daawan jiray oo ay media soo galeen goor meel lacag sameynayaan marka waxaa leedahay dadkii annaga na daawan jiray hadda youtuber noqda ama social media dadkii annaga nisbad gareyn jiray oo annaga na daawan jiray oo nagu xirnaay baa hadda media jooga baa u baahan marka annaga inaan daawano waana daawanaynaa wax cusub la imaada okay najmo maxay ahayd ama muxuu ahaa heshiiskii aad diiday
oo lagu keenay caannimadaada xayeysiin ahaan weligaa sababtaad u diidan maxay tahay sideedaba aniga xagga xayeysiinta iskuma fiicnin niyow wala iskuma fiicnin laakiin dad oo aanan si shaqo ahaan aan ugu shaqeyn oo markaas u baahan inay soo baxaan ama aniga u arkay inay wax iga faa'iidayaan oo kale waa iska caawiyaa laakiin anoo lacag ka qaadanaynin inaa wax xayeysiiyana si caadiya shaqsiyan uma jecli sababtoo ah waxaan markaa qofka waa contract waa lagumana waayi karo waxna ma khaldi kadhid xurmatiid marka ma jecli sababtoo ah aniga waxaa igu yar dulqaadka samirka dabeecadda waa ku fiirinaa jidka adoo taaganaan kaa dhaqaaqa aniga sidee marka ku geli karnaa marka aniga xayeysiin qofkaan maanta in loo dulqaato inaa maanta wax usi samaysuu rabaa marka su-aashaas waa yoolba iga haysta xaggeeda okay mid u eg laakiin ka duwan najma haddii maanta aad rabto inaad wada shaqeyn dad idin dhex marto ama company ha noqdo ama shaqsi ha noqdo maxaa muhiim u aragtaa inaad kala hadasho lacagta what you talking about lacagta ma khaldi kartid xataa taase lacagta lama waay malay maqlaa lacagta waa kaa taasaa muhiim haa wixii kaloo iska imaanaya waa dhididoo yaabe lacagta najma waxaa imaadna qeybta dhaxay oo ah inaan ku ogaano dooqaaga sax najma jacaylkii lacagta kaamera isku ilaalinaysa oo igu socota ma ahee waa ku dili lahayn macnaha sidee jacayli lacag iskula simi ka dhaa maxaa kaa qaldan ma jacayli lacag semberi lacagta oo adi jacaylka maba war anoo xanuunsan oo isbitaal tiifaa daarta shiid ba ah anoo finan iga soo baxeen oo dabeecadda iga xumaataa daarta shiid ba ah hay inta kale oo aan laba jeer ku dhaafo waa haystaa waa kaa so waxaa leedahay jacaylkani waxaan shaqo ma kuliya ani lacagtaas aqaanaa jacayl niyo jacaylna waa la rabaa ani jacaylna waa jeclahay lacagna waa sii jecla lacagtaas sii jecesha waa sii jecla maxaan ka noola aniga lacag baa wax ku ahay sababtoo aniga hadda qofaan waxba haysan lama noolaan karo muusow marka semberi lacagta cidna lacagta calankeeda kor waa kaa qofka dhagoolka xataa waxa kaliya u maqlo waa lacag ma ku siiyaa bas qof dhagool leh lacag ma ku siiyaa ma dhihi kadhaa haa uu ku leeyahay inta kale dhan khayr dhan ma maqlooy waa runta okay dalxiisyada dibadaha loo aado dalka banaankiisa iyo kuwa gobolada dalka lagu dalxiiska jecesha gobolada aada ugeystaa yaa badanaa ani xitaa dabeecaddas waa leeyahay okay haddii lagu yiraahdo qubays la-aan noolow amaba caday la-aan noolow keebaa ka maarantaa qubayska qubays la-aana joogi kartaa haa caday la-aanta lama lama joogi karo yool baa haysta taas okay mobilekaaga iyo tv-ga kee ka maarantaa tv-ga ka maarmaa taas iska caddaa midaas sida caadigaba okay su-aalahan markaan soo gaarnay qaybtaas waxay ahayd madadaalada okay haddii lagu dhaho qof soomaali ah qof bani aadan oo soomaaliyeed yaad najma naqanaysaa one day qofkaasaad banaqanay adaa naqanayaba maxamed cabdulaahi farmaajo waaw ma dhamaystiraysid xataa su-aasha adiga maxamed cabdulaahi farmaajo aan naqalayd haa farmaajihii naqiinaan naqalay sax waa garta okay najma fariimaha luuqyada lasugu diro fariintii kugu qosol badneyd ee luuq lagugu soo diray maxayd qof aadan aqoonin kugu soo diray taas inaa ka dhacdaa fiican noo sheegtay aniga waxba ka bareeray luuqa luuqa aniga dad waalwaalan baaba iigu jiraba waa la yaabaa habeen baan usoo casheeyaa waa usoo seexdaa ayaga keligood si aan u daawado qof walba waxba iska soo qoraya marka taas waa iska wada qosol waayihiin laakiin ma xasuusta saaxiib ma xasuustid ma soo xasuusta okay su-aalahan waa qaybtii su-aalihii qotada dheeraa waaye wax badan rabna inaan ku ogaano najma cudoon maxaad adu ku faantaa waqtigan maxaa ku faantaa maxaa kuu qabsan ood ku faantaa shaksiyadaada
inaa ahay qof micnaha maxaad ku fahantaa oo ama kuu qabsoomaray najmi cudoon ahaan inaa ahay qof keligiis meel taagan oo wax qabsaday isagoon cidna ku tiirsanayn micnaha aad weyn haa iskoris taasoo ku faani kartaa haa anuu cidna hooyo iyo aabiyo walaal iyo ehel midna ina anuu gabar ah aan noolahay oo anigu aan wax qabsado wax aan ahay aniga okay najmi cudoon markii aad dareento murugo ama niyad jab maxaa ku dhiirigeliya aabahay so isagaa la tashataa simbre aabahay aniga haa waxaan u arkaa familiga intiisa kale xataa inuu muhiimka yahay isaga aada weyn okay najmo wanaagi fara badan aa nolosha sameysaa bini aadam buu sameysaa khasab qof bini aadam oo nool oo xataa moogtahay damiir leh wanaagyada aad dadka u sameyso wanaageed ugu jecesha inaan dadka u naxariisto oo qof kasta baahidiisa aan kuwaa wax ka qaban karo aan wax ka qabto muxuu damiirkaaga diidaa al yacni ku takrifalka dadka masaakiinta ah oo kale waan garta in dadka lagu jeejeeso ama dadka lagu tunto ma jecli marmar waxyaala aanan goobjoog aan u ahay ama aana u ahayn oo gadaalka soo gaaray xataa waa ka qayb qaataa dad aana aqoonin xataa ma jecli dulmiga qof lagu edab daroodo ma jecli aniga marka damiirkayga iyo naxariisteeda aaday isku feer ordayaan cilad kalena waa leeyahoo xumaan iyo samaan isfeer ordaysaa ahaa aniga maxaa ka wadaa really qaabkee qaab noocyaa kula ahaa maye maantan iyo samaantan is aadila isla wadatid maxaa macnaa sidee walaahi shar iyo khayr isla socda ahaa aniga yacni wax walba iga filo saana ahay saana ah 5 daqiiqo wanaaga igu arkay 5 daqiiqo kadibna xabada iga daba dhacus okay ma aqaan su-aashaan sababta dadku ku weydiiyeen adoo 100 jeer dhanka xiriirka bac iska siiyey waxaa lagu leeyahay guurka najmi maxay ka aaminsan tahay guur waxaa anaga kusoo dhalanay waay haye ayagana daawanayana guuray ka imaadeen haye kuna weydiinayana inay reer leeyina macquul ah qaarkoodba laakiin su-aashooda ayaga xagga u dhacaysa waa oga haye macnaha maxaa uga daahsan tahay waay waa la isku fahma guys waa garta waxa uga daahsanahay laba siyaaboodba horta gabar dhalinyaro ah oon 30 weli gaarin oo guur ku ordaysa haddaa aragtid waa laba mid ama waa qof xorriyad doonaya ama waa qof baahan naag baahan baa ninku orda haddaan kuu sheegaa micnaha sababta aan kuu dhahayana waxay tahay baahiyaa badan ee tee ka wadaa ani baahi oo dhan al yacni dumarka badanka anigoo kale hadda qof wacyiga adduunka jira fahansan baa ahay sida banaanka looga noolyahay baa ogahay qof maanta guriga waalidkeeda inta ka timaado guri kala gelaysa ma ihi al yacni si toos ah baan wax kasta u fahansanahay waa caqliyaysta dumarka saas ma ku fiicno waxay ku qurux badan yihiin dumarka gabadha gurigooda iyadoo joogto oo waxba badan aan raggana ka fahansanayn banaankana ka fahansanayn in la xareeyo haddii ay ku kale fiican she's tahay dangerous ee naqanay macnaha cudoon camal nimankii ay macnaha la qaad qaadanaya haddii kale agbaamayaasi anigu hadda ninka asoon hadlin baan fahmi karaa wuxuu soo wada shar iyo khayr waa wax aa gaaray macnaha si fiican ku dhex jirkoodaan igu kalifaya marka anigu nolol guur ka ballaaran oo aan rajeynaya baa jidha oo aan guur ugu degdegi karin kama dhigna inaanin la-aan ahay haddaan guursado xataa aniga dadka ragga binjiga fadhiya aada u badan yihiin haye cidna ma noqon kari waan garta ciddada xataa in la yareeyo waa qabaa si loo dedejiyay mid kale marka imtixaan waa wallahi okay okay najma waxaan rabnaa inaan ogaano 3 waxyaabood oo najmi cudoon isleedahay waa kaga duwan tahay dumarka 3 3 waxyaabood adiga waxaana isleedahay dumarka waa totola kaga duwan tahay go-aanka go dhaqanka iyo dabeecad ahaan
dabeecada kaga duwana okay gabdho badanaa jira hadda social media ku jiro inkastoo aan ku weydiinayn reasonka su-aasha aan ku weydiina waxa waaye waxaan kugu ogahay inaadan badan wax qarinin mogtahay dadka wax qarinin waa dadka keliya oo sometimes su-aalo qaar yani lala bareeri karo lala hortegi karo gabdhaha social media ku jiro badanaa yani waxaa hadda ka taagan dacwado ah dadka giftiyada ragga dhalinyarada maarta lifeka lacagaha diro gabaraan dacwo ka ahay lacaga iga cuntay gabar social media ku jirta maxaa la yirahdaa shalay saana ahayd anaa wax siiyey intaan ka baxay guuri iga ballan qaaday guuri iga baxday waayo inta badan gabdhaha social media ku jiro loogu eedeeyaa ragga guuri ka ballan qaadan way nooga baxaan horta guurka iyo dumarka iyo ragga macnaha ma dhihi karo dumarkaa xun ama raggaa xun ma dhihi karo labadoodaba way jiraan dumar diyaara oo raggay ay ka tageenna way jidhaa macnaha oo ninka wax la gooyo haa way jidhaa laakiin kaas guur maba ahee oo aan wax ku xiray aniga gifti isii wuu ku guursanayaa xagee ka jidhaa ma dhici karo waa wax khaldan waa wax aan rabnin inaan ogaano no guurka iyo nolosha ani waxaa u arkaa wax weyn oo aan laguna degdegi karin waxna aan lagu xiri karin ani maanta markaa raba inaan guursado anoona xataa u fiirinayn qofkan muxuu i siin karaa ama muxuu ii qaban karaa waa inaan ka arki karo nolol tan hadda aan ku jiro mid ka weyn oo ballaaran waxaan rabaa inaan hooyo noqdo qoysaan rabaa inaan ballaariyo micnaha kuma xiraayo qofkan waxaasuu isiinaya waxaasaan ku guursanaya waa adoo isgaday oo kale aan jirkayga se u gadanaa gabarnimadeeda lacag ma goysa saaxiib marka guurka micnihiyaa looga dheelay waa sababtana furiinku u batay aniga maalintaas dhow xiriir samey ama guurso saaxiib waxaan arkayaa gabar lagu soo dheelay oo ooyeysa 20 aan bixirtaba ani dib baa u degay markasta qofaa arkaysaa cabanayo waxaa arkaysaa qof gabar ooynayso ama wiili gabar sila ooynayo wax ka qaldan yihiin marka guurka laftirkii saaxiib waa caajis aniga hadda waxaan u noolahay single kibirtay oo caadiyaa ahay xaaska uma noola sida u noolahay maxaas dhihi ka dhaca culays ahayn hadda nin igla maqaya muxuu igu soo kordhin karaa isleeda maxaa la isku guursadaa marka najmo haddii oo la guurka caadiga ahay sideedaba guurka wuxuu ku qurux badnaanayaa markaa la joogto qof kuu qurxinaya aada weyn hadda hooyooyinkeeni ayeeyooyinkeen markaan wareysanayno markii ayaga ay soo arkeen noloshaas ay ku jireen guurkoodii ay kusoo dhammaysteen qurux badan ay kuu sheegayaan laakiin guurka hadda jira iyo ragga hadda jiraniyo waxbaa ka qaldan sidee dadka yool u heystaa maxaa qaldan ani ma sheegi kari taas anise u joogtay kusoo ridayso wallaahi bilaahi yaab anigi yaan raacnaa wallaahi bilaahi waa wareera ani markaa xagga siba nimanka wax uga qaldan yihiin ma nimankiibaa xagga mid kale nimankii badanka way koosteen yaa u qarnoosaaniyaa sirta yaa u qarnoos wallaahi way koosteen xagee aadeen nimankii qaar iscadeeyey qaar nimanka la raacay waxbaa jira waa cabsadaan qaar nimanka la raacay alaskala artanaa wallaahi bilaahi najma saaxib su-aasha aan weydiinaa markaa waxay tahay haddii lagu dhihi lahaa gabdhaha maanta jiro hal arin oo aada nolosha adig ka baratay najma ahaan oo kaa dhigtay najma cudoontan sidaa sheegtay oo annagana aan ujeedno gabar isku filan oo lugeeda ku taagana haddaan lagu dhihi lahaa gabdhaha halkaas arin u faa'iidey maxay qalayd waxa ugu isleedahay inay sameeyaana ka maqan maxaa kali noolaansho iyo inay fahmaan nolosha yacni waxa ka maqan inay keligood qabsan karaan aysan cidna isku halaynin sideeda bataatan dumarka mar kasta waxay ku jawi yihiin dareenkooda dumarka markaas xaaladda markaas ay ku jiraan bay la qof yihiin
haddii ay murugaysan tahay waa murugaysan tahay, haddii ay faraxsan tahayna waxba uma kala socono, dumarka waa faraxsan yihiin. marka taas aniga waa soo arkay, waana iska aniga cid ila talisay oo maanta qofka ah iga dhigtay ma leh aan waqtiga ahayn. aniga xaalada waxaa soo maray yacni dumarka ama gabdhaha ila mid ah maanta aysan soo marin baa soo mara oo adayg ah, oo hadda maanta aanan ka faahfaahin karin. markasta gabdhaha waxaa kula taliyaa haddii ama aan la joogo ama aan layga wareysanayo su-aal saasoo kale ah, waxaan dhahaa barta inaa keligiin wax qabsan ka dhaan oo cidna inaan ku tiirsanayn. gabar kasta oo keli noolaansho taqaano ama keligeed inay nolosheeda la harjado taqaano waa gabar macnaha waa duni wax qabsatay oo wax ah, ilmaheedana berri wax u noqon ka dhah haddii ay hooyo noqoto. haddii ay hooyo noqoto berri ka maalin waa qof meel taagana cidna u baahnayn. aniga sideeda bataata dumarnimada waaba ku caajisaba saaxiib. meel leyma igeyn ka dhaan dumar intaa lagu geena koos markasta abow waxaa nolosha lugta dambe lagu haayo waa dumar. hadda dadka weliba dumarka waxaa isaga qaldan dhaqanka iyo diinta. sax yacni hadda ninbaa yacni guur iisoo bandhiganaya even ama wiili gabaraa guur ka hadlaayabo waxay ka hadlayaan waxyaala oo dhaqan ah buu wuxuu rabaa inuu uga dhigo wax diin ah. gabadha waa inay guriga joogto, waa inay bariis ii kariso, waa inay waxaas ii samayso, waa inaysan guri ka bixin, waa inaysan gabadhu lacag aysan heli karin, waa inaysan shaqaysan karin. adiguna subaxii baan ka lahaya duurka imaanaya, waa seexanaya, waa qadaynaya, galabkiina banooni aada ama jiima aada ama waxaan fadhiisanaya meherad. haye adigoo ah muuse tooreya kugu boobsiina iidi ku dhasha waryaa. aniga waxaan u arkaa aniga shalay masaajid ma iga barata. aniga marka ay banaysa diinta maa faafinaya. say dhihi kartaa aroos ka har najmay ma niikin karta may dhihi kartaa adi aniga wixii ii xun iyo wixii ii san waa garanaa leedahay. aniga qusaysaa waxyaalaha hadda aan samaynayana caqliyan marka sida caadiga ah u fiirino waa camal la-aanta badan baa keenaysaa. laakiin marka aniga beri hooyo noqdo reer samaysto waxaan jaanisada aan shalay u heli jiray baa meesha ka baxaya. taasaa keenaysa inaan gurigayga ku mashquulo. sax laakiin ninkayga hadduu u arka ka waran najmi waxba ma qabsan karid guriga soo wax lagu caajisa ma noqonayo. waa ina aniga adiga aan wada bixi karno subaxii shaqadaada aad shaqadayda aadaya danayga raacanaya gurigaas aan isugu nimaano. okay su-aasha ugu dambeysaan ku weydiinaa marka ragga iyo dumarka soomaalida adduunka marka hadlayna mogta ragga iyo dumarka soomaalida hadda waayahan dambe 2 sano 3 sano ugu dambeysay aad loo kala baxay social media wax walba hadda fashila mogta maadaama hadda soomaalida social media fahamtay waxa la isku haysta mawduucan hadda ka hadlayso kale gabdhahan waxaa jira gabdho yimaado feminism xasamal Allah adiga yani waa dhaqan gabdhuhu ee dumar qaar ee aamineen like dumar laana la dhahaa dawlad gaar ah nahay anaga waa isku tiirsanahay waa isku doodeena waa isku dacwooneena like ragga waxba naga lama maqna muhiimno mu aragno yani waxyaabo noocaas marka waa qalad sax fikradaas maxaa kale rijaal xaween waa ragga wax weyn inuu yihiin sida saxda ah ceebna ma ahan inay dumarku macnaha inay isgarab qabtaan oo is ag taagan yihiin is xaalad og yihiin ceeb ma ah. ani maanta guriga igu xiga gabdho markay joogaan inaan ka warqabo dumar aan isla nahay maanta waxaa laga yaabaa in gabdho badan iyo niman badan oo isqabqaba inay asxaab yihiin. dumarka gooni u baxayaan raggana gooni u baxayaan. dumarka waa isku sheeko waa dumar salaada isku xiranaya, raggiina waa ragoo waa isku sheeko danahooda ka bahalkeysanaya. marka aniga dib kuma qabo ceebna uma arka inay dhahaan dumar laan baan nahay, laakiin inay dhahaan gooniya u istaagno annaga isku filan wax sidee isaga filan karaan isleeda. hadda maanta ani halkaas haddaa kufo ama wax culus wado qofka kaliya igu soo leexanaya waa nin oo waxaas iga caawinaya i qaaday. marka ilaahay rag la-aan ma dhigo si toos waa ka maarnaada qalada waleeda waa ka maaran se uga maarmaa haddaa ka maarana ilaahay wuxuu usoo dirsaday waa taas
yeah good ma ka maarano okay rag badan aa dhigi doona gadaal dambe naga dhaqda najmo sideedaba wallahi billahi talaa aada u jeclaa aniga adiga waxaa ku fiican tahanoo mawduuc lagu weydiiyey taasaa ka run sheegaysaa ereyga markaas lagu weydiiyo yaa ka run sheegtaa adi ahaan marka tii horena fikirkaaga ka sheegtay mugtahay tan dambena fikirkaaga ka sheegtay labadaba sidaa wuxuu ah ya horta najma aada umahadsan tahay waxa waaye aniga tiimkeygaba kama caajisan inaan podcast kula sameyno kula sheekeysano cause dadkii aa ku jecel waa ogahay inaadan xataa u badneyn mediadi inta badan laakiin ani maogtahay maadaama social media ani yani ka shaqeeyaba oo hadda uu 80% shaqooyinka aan qabtay ay tahay muuqaal soo gudbiye ahay waa ogahay maogtahay dad qof kala daneynayo oo dadka rabaan markuu asxaabtii ugu xirna aad bay ku danaysaa horta waxaan ku leenahay sharafi karaame noota mar kale inaan nasiib u yeelano inaan wada joogno oo stuudiya mar kale aanu soo booqatay codsigeenana aad ajiibtay waqtigaaga qiimaha badan waa kaaga mahad celineynaa waxaan ku leenahay mar labaad iyo mar saddexaad soo dhowow thank you guys idinkuna aada umahadsan tihiin waxaan umaleynayaa najmo soo celi keliya hadal maaha najmo muuqaaladeedu waa inay ka saameyn bataan ka daawasho bataan ka like bataan muuqaalada kale si aan u dareenno inaan mar walba najmo in la keeno aa muhiim u aragtiin aada umahadsantiin marka si wada jiraan in waxay leedahay sidaas iyo nabadgelyo